السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أمد الصوماليات ميل البوجوغان وحن لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النقوع زبطة سبسكرايب كنوصار ونو شير كري ونو لايك كري وحندونينا إنا نهلنو صاحبو ونكسن سيداديك وكالي ما تسند. halkan waxaan ku soo gudbinaynaa dhacdo cajiib ah. Dunidan wax walba wad arkaysaa, wax walbana wad la kulmaysaa. runtii dhacdadan waa dhacdo geeri ama dhimasho ah. runtii dhimasho maahan wax la yaabo, wax soo jiray oo wax jiri doona, waa wax aan laga faksaneyn ama aan laga badbaadin. dhacdadaas waxay ku dhacday nin ku dhashay dalka Tanzania. Afrika wad iska ogtihiin nololeesheeda ama ku noolaasheeda waayihii hore aad bay u adkeed. waxa iska jirtay nolol iska ciriiri ah xagga dhaqaalaha. ninkan wuxuu u hijrooday ama uu aaday dalka Faransiiska. meeshii ayuu iska dhiibay. wuxuu ahaa nin dayar, sidaa darteeda waa la soo dhaweeyay. degsiima ayaa la siiyay ama soo dhaweyn. kadib waxaa la siiyay dhalasho. nin muwaadin Faransiis inuu yahay ayaa loo aqoonsaday. kadib ninkii uu guursaday wuxuu ahaa nin kubadda cagta ku xamaasha ama ciyaar. runtii noloshiisa inta ugu badnayd ama kala barba wuxuu ku soo qaatay farxad, reen xaas jecel iyo caruurba ayuu helay. wuxuu ku shaqaysan jiray kubadda cagta. ninkan hadeer wuu dhintay. wuxuuna ku dhintay da'da 72 jirka. ninkan hadduu dhintay iyo hadduu nool yahay maxaa micno oo ku jiro? geerina wax cusub maahan in aan ka sheekeynana maxaan ugu kalifay. waxaan ugu kalifay ninkan geeridiisa iyo noloshiisa inta u dhaxaysa ayaa waxaa ku jirta qiso aad iyo cajiib ah, una baahan in lagu cibro qaato. qofkan ama ninka hadda aan ka sheekeynayno haba hadoono inuu yahay gaal ama hadoono uu yahay muslim ah, laakiin qisadan waxay tusaale u tahay dad fara badan, qaasatan dadkeenan Soomaaliyeed, inay qisadan oo kale ay u noqoto cibro qaadasho. runtii qisooyinka in laga sheekeeyo sida culimada aan ka maqalnay iyagana ay soo qaataanba maahan wax dambi ku jira ama xadgudub. qisada qof gaal ha sameeyo ama qof muslim ha sameeyo, haddii ay faa'iido kaaga dhex muuqato waa in aad adiga faa'iidadaas qaadataa haddiisan diintaada dhaawicin. waxaa dhacday ninkan in badan ayuu kubadda ku raaxaystay ama uu ku shaqaystay. uu dhaqaale badan ka sameeyay sida caadada ahayd. ciyaaryaanka mar waliba in badan markuu garoonka ku jiro ama kulamo badan u ciyaaro dhaawac ayaa soo gaara, ha noqdo dhaawac yar ama dhaawac badan, sida hadda ciyaaryaanada ay u dhaawacmaan oo kale. oo kooxdada asigoo muhiim ah uu ka dhaawacmayo, isbuucii uu ka maqnaanayo bilooyin ama sanooyinba. ninkan wuxuu ka dhaawacmay jilibka ayuu dhaawac halis ah ka soo gaaray. laakiin waqtigaas ma aysan jirin casrigan maanta la joogo oo ciyaaryaanka maanta hadduu dhaawacmo week kadib ama 2 week kadib si professional ah uu ku soo noqonayo. oo horumarkan maanta jira ma jirin. dadka sida hadda ilbax u yihiinna ilbax uma ahayn, balse dhaqaatiir weligeeda wax soo jireen ay ahaayeen, wayna jireen. laakiin qalabkan iyo horumarkan maanta la haysto lama haysan. ninkan jilibka ayuu ka dhaawacmay. dhakhtarkii ayaa la geeyay ee kooxda. wuxuu sheegay dhakhtarkan inuu ninkan yahay operation. uu doonayo in jilibka laga qalo oo laga dhayo oo operation loogu sameeyo. kooxdii iyo asiga iyo familkiisaba way isku raaceen, waayo waxay ahayd wax dabiici ah in ninka ciyaaryaanka uu dhaawacmo ama operation uu galo, ama qofkaas oo ciyaaryaan ahaanba operation uu galo. waxaa dhacday ninkii operationka intaan la gelin ka hor, qofka markii qaliin lagu sameynayo waxaa daruuriyaad ah in la suuxiyo, ama inta operationka lagu sameynayo in laga suuxiyo ama dareenka
laga qaado waayo qofka bini'aadanka ma adkeysan karo xanuunka xad dhaafka ninkaana dhaawac daran ee jilibka ka gaaray sida darteeda waxa daruuri ahaatay in la suuxiyo asigoo dhan marka ninkan maalintii operationkaas la saxiixay waxay u ahayd maalin asiga si qaas dhibaato uga ah dhakhtarkii wuxuu sameeyay ninkan wuxuu duray cirbadii suuxdinta operationka ayuu sameeyay waxa uu lisgareysnaa oo u diyaarsanaa ama uu ku xisaabtamayay ninkan saacado ama daqiiqado kadib inuu hawada ku soo noqon doono ama uu soo toosi doono maxaa dhacay markaa waxaa dhacday ninkii cirbadii la duray ee suuxdinta ahayd ayuu u maqnaa ama hawada kaga maqnaa muddo aad iyo aad u fara badan haddii aan idin sheegnana aad la yaabi doontaa runtii saacadihii la sugayay inuu soo naaxo oo dhakhaatiirtana ay u liisgaraysneed ama ay rajaynayeen bini'aadanku waa iska rajo caafimaadka iyo xanuunkaba ilaah baa iska leh waqtigii wuxuu dhaafay waqtiyo aad iyo aad u fara badan wuxuu gaaray in muddo ama wiig ah uu jiifo dhakhaatiirtii way u cunsami weysay way baaritaan bay ku sameeyeen iskaan bay mariyeen ninkan ibnihiisa way shaqaynayaan laakiin daawadii suuxdinta ayaa jirkiisa ku jirta runtii arrintaas waxay ku noqotay weji gabax waddankana waa waddan ama ha aadwaa hore ama ha noqoto hadeer waddan Yurub ah mar walba uu ka fiicnaa waddamadan Afrika markii la dhaho xagga dhakhaatiirta iyo dhaqaalaha marka waxay diidayeen in ay ceeb soo gaarto oo la dhaho nin ay suuxiyeen ama cirbad suuxdin ay ku diraan ayaa soo toosi waayay waxaa dhacday ninkii waxay ku sameeyeen iskaan bay mariyeen ugu dambeeyay ninkii waxay ogaadeen in uu nool yahay waxay ku fikireen in ay ka saaraan suntii suuxdinta jirkiisa dhan way ka soo wada saareen balse nasiib daro wax natiijo ah kama soo kordhin ninkii sidii ay u suuxsanaa waa la sugay ilaa iyo muddo bil ah kadib weli waa sidiisii uu soo toosi waayay marka waxaa dhacday dhakhaatiirtii waddanka ayaa wada shiray kadib waa la isku imaaday ilaa iyo heer waxaa la gaaray dhakhaatiir dibadda la doono dhanka wadnaha ama sunta ka saara jirka la isku keeno ninkan si kasta ayaa loo sifeeyey waxaa natiijada ay soo saartay in jirkiisa wax suna oo suuxdina aysan ku jirin waxaa la baaray xididadii daawada laga siiyey waxaa la ogaaday inay tahay meel sax ah aan qaladaad ku jirin meesha daawada laga siiyey marka ugu dambeyn waxa la isku raacay ninkan inuu asiga uu soo kici doono dhawaa ama dheera laakiin muddada uu jiifay ninkan ilaa uu ka geeriyoodo oo wadnihiisa ka istaaga ma ahayn muddo kooban wuxuu jiifay aakhirtaankii wuxuu jiifay ninkan muddo dhan 39 sano ayuu sariirta saarnaa saxridiisa la qaadayay la tacaalayay yaa la tacaalayay markaa waxaa la tacaalaysay xaaskiisa daacadda ah ee mar walba rajaynaysay in sawge ama soojkeeda ama gacliyaheeda inuu dib ugu soo kici doono uu nolol farxad ah la wadaagi doono qisadan waxay muujisay dumarka in ay ku jiraan dumar dhib iyo rafaadba kula qaybsanayo wax walbana kula marayo muddo 39 sano ayuu ninkan sariirta saarnaa xaaskiisana maalin kama caajisin in ay la tacaasho oo waqti ku bixiso way awooday in ninkan ka fogaato oo nin kala guursato oo nolol kala cusub dhisato xitaa familkeeda markuu asiga 10 sano ugu yaraan jiifay ay waxay ku dhaheen ninkan rajo ma lahan dhakhaatiirtiina way ka rajo dhigeen maad adiga ka danaysatid oo adiga aad guursatid nolol kalena dhisatid maxay ugu jawaabtay waxay ahayd gabar xagga qalbiga qofka ugu wanaagsan ka waxay ugu jawaabtay maanta ninkeyga haddii aan dhaawacan iyo dhibaatadan kaga tago ma laga yaabaa ninka haddana aan guursanayo dhibaatada noocan oo kale haddii igu dhacdo inuu nolosha ila joogo ama garabkeyga taagnaado
waxaan rajaynayaa in maalin maalmaha ka mid aan farxad wada qaadan doono maalin maalmaha ka mid ah aan nolosha wadaagi doono inkastoo ay arrintaas ku soo dhamaatay guuldaro laakiin indhaha caalamka waxay tustay gabadhaas in ay jiraan dumar aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u adkaysi badan ma laga yaabaa dumarkeenan Soomaaliyeed ama raggeenan Soomaaliyeed anaga waxaan leenahay maamaha meel ay ka yimaadeen ama meel ay u jeedaan la garanay dad jaahiliina ay soo saareen lagana dhigay wax qiimo ku fadhiya waxa kamid ah maamahdaas waa la isku nacaa bugti badan iyo baahi ama baryo badan waa qalad waayo qofka bini'aadanka caafimaadkiisa adiga ma haysid ilaahay caafimaadka haya qoftan 39 sano ninkii ayada qabay ay u dul taagneed caafimaadkiisa la tacaalaysay ma bini'aadan ma nisan ahaan mise adiga ay wax ku dheertahay waxu kuma dheer laakiin inta ay ku dheertahay waxay tahay adkaysi iyo go'aan waayo ninkan noloshiisa hore ayuu wuxuu u sameystay qof kalsooni buuxda la siiyay ee nolosha si wanaagsan daacadnimo loola qaybsan jiray ay ahayd wayna garan weysay ama ka dhaadhici weysay nin asigoo kale oo siiso kala daacad ah inuu dunida dul saaran yahay runtii dumarku waxa lagu hantin karaa daacadnimo iyo soo jiidasho sida lamida ragana sidaas oo kale ayaa lagu hantin karaa waayo qofka bini'aadanka caafimaadkana asiga iskuma hayo xanuunkana asiga iskuma hayo almihim ninkan 39 sano markuu sariirta saarnaa ay la tacaalaysay wuxuu geeriyooday waqtigan hadeer aan taaganahay 2021 asigoo ah 27 jir wuxuu sariirta saarnaa ama sariirta kore asigoo dhalinyaro ah oo kubadda cagta ciyaaraya ilaa wuxuu saarnaa 27 sano uu ka gaaro ugu dambeynna uu ku geeriyooday runtii qisadan waa qiso cajiib ah waxay cajiib ku tahay waxay noo muujinaysaa insaanka ama dad bini'aadanka in ay ku jiraan dad dulqaadkooda aad iyo aad u fara badan yahay runtii dumarka hadda jira qaasatan dumarkeena Soomaaliyeed waxa laga yaabaa gabar intaas oo sano uu samrayso ku ag joogayso in laga helo boqolkiiba hal maxaan u dhahayaa boqolkiiba hal waxaan u dhahayaa adigoo caafimaad qaba haddii uu shaqo la'aan kugu dhacdo ama wax la'aan kugu dhacdo ay ka tagayaan boqolkiiba 9 marka adigoo xanuunsan oo sariir saaran see noqon doonta xaaladaada marka walaal waxaan ku leeyahay wax walbo xagga Alle ay ka qoran yihiin wax waayida iyo wax helidna waa wax qoran marka waxaan ku dhihi lahaa nolosha adiga ma samaysanin farxadna adiga ma samaysanin murugadna adiga ma samaysanin waxaan ku leeyahay xaalad walba noloshaada ku soo kororta waa inaad noqotaa qof dulqaad u leh oo u samri kara oo ka dhiidhin kara dhihi kara waan la dagaalamaya xaalad walba nolosha ay soo abaarto waxaan khayr iyo barwaaqo ka rajaynayaa Allah weyn ee subhanahu wa ta'ala marka gabadhan aniga waxaan u aqoonsaday inay tahay hoggaanka dumarka ee maanta dunida saaran waa islaan hadda gawowday waayo odigeedii ay la soo tacaalaysay 39 sano asigoo sariirta saaran marka ha noqoto muslim ama ha noqoto gaal laakiin almuhim dhaqanka ay sameysay ayaa ah dhaqan lagu aqoonsan karo oo madax lagu saaran karo marka walaal waxaan ku leeyahay tusaale ku noqoto qisadan wassalamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh